cid ku soo duushay Soomaaliland aan musabixi ahay ma jirto haddii cid ku Soomaaliland iyada ku soo duushay laascaanood iyada hanan kari weyday si walba waa loola hadlay ammaankeedii bay ku waayeen ummadii magaaladii bay dabara lagu kala baxay maalintii damana xabad bay ugu jawaabeen xabadii ka socotayna wata wali ka socota dadyoga la leeyahay waa hadlaya iyo reehbel baa yimi oo lagu soo duulay uma waxa doonaysay intii aad caruurta iskala taagtay iyo magaalada madaafiic la iskala taagtay ummadda Ilaahay kugu eegto inta sawaad ka bad oo waxaan rabaa inaan ka yiraahdo mushkilada ka taagan laascaanood iyo ka dhacay waxaan rabaa inaan ka dambaysiyo barreer Sheekh Saab wixii ay filaan iyo waxay tashadeen iyo wararka aan maqlay wixii ka soo baxay saddexda bilood ee dhigaysanayay madaxweyne xisbi siyaasi mid hore wasiir xukuumad suldaan dhaqan iyo bulshooyintoodii baqaalada iyo waxay soo gaarayeen cid walba waxay tashadeen wixii meesha ka dhacay waxay kaga jawaabeen muddan dhigaysanayay xaalka hawsha meesha ka socotana waa dhex joogay sida wuxuu dhacay sida wuxuu socdaana waa arkay laascaanood waxaa ka dhacay su'aashu waxay maxaa laascaanood ka dhacay laascaanood waxaa ka dhacay oo ka qarxay haddeer 32 sanadood wax soo socday xumaan iyo tala xumo iyo farxumo 32 sanadood istaba socotay umar beheer maraysi iyo tala xumo maanta iyo 6 sanadood ugu dambeeyeen inay bixi galka ka saaray oo banaanka soo dhigay iyadii baa qarxday oo teamkeedii soo gaadhay waliba muddo horsareed waxaa ka dhacay 32 sanadood wax qaloocanaya oo tala xumo ah oo miirqab iyo waraanta shalno iyo wax ka bedelay iyo sidii maaha iyo ninkii miir qaba la hadal waxay soo gaadhay in dadkii ammaan waayo 15 sanadood ugu dambeeyay ummadii meesha ku noolay laascaanood maamulkii yimi ee ka tirinaya la keenay rag siyaasiyiin oo markaa joogay ka shaqeeyeen waxay dhaxashay in dadkii ammaan waayo horumar kale iyo nolol iyo wax kasta markii laga safray inay nabadgeliyo waayaan anigu intii ka mid ahayd baan ahay in laga shaqeeyo dadkan amni inay helaan in cid wada hadasho in talada dhulka la dhigay in wax laga bedelo kuwii ugu dambeeyay baan ahaa ummad fara badan oo iga horeysay wax garad iyo aqoon-yahan iyo dhaqan oo waqti badan gelisay reer Sheekh Saab iyo taaleys helaan waxay soo gaadhay ammaan in la waayo markii ay meel ay ku baxsadaan waayeen inay ka mudaharaadaan oo yiraahdaan sidaan la dhaqmayso in xabad loogu jawaabo oo qorigii la haystay wixii ugu waaweynaa la dhaco carruurta iyo dumarka waxay noqotay inay qayliyaan oo tala la isugu yimaado dadkii dhaqanka iyo madaxda siyaasadda waxay tala isugu yimaadaan waanu tashanayna baa la yiri jawaabtu waxay ahayd maxaad u tashanaysaa sidee u tashataa qodobka reer Sheekh Saab iyo xukuumadda meesha joogtay waa liiq waayeen in la tashado waa u cuntay guweyd haddii isaga waxa ka soo baxa wax la iska yiraahdana waxun bay noqon lahayd wixii ka soo baxay waxay noqotay in xabad loogu jawaabo xabadii maalinta ka bilaabatay maanta ay joogno laamisa bisha maanta waran waa ka bilaabatay xabad 3 bilood qalalaasoo waa soconaya iyo dilku waa socday xabadii kulleed baa ka bilaabatay ilaa maantana wata dusheena ka dhacay guryaha lagu soo riday hoodiyaha iyo madaafiic laascaanood horta waxa ka dhacay waa wax aan dib ugu noqon haddaba shalayna waa maqlayay xabadii maalinta ka bilaabatay sidii uga socotay waxay gaadhay in guri walba madfac la dhaco waxay gaadhay ummadii joogtay maatadii markii lagu laayay inay ka baxaan waxay joogtay in laga tiro leedkii iyo biyihii iyo wixii asaasiga ah nolosha ku dhisnay waxay gaadhay in loo aabayeen wixii la hayay lagu soo riday waxay ilaahay qadar wixii ku dhiman lahaa inay ku dhitaan walina wata taaganaan xal loo hay haddana ima muuqdo waa maqlay shalay nuuc taani oo dadka waa u turayna waa u soo noqonaya nuuxii inta la oranayo sidee looga falciyay ama warka aan reer Sheekh Saab ka arkay iyo talooda iyo xukuumadda haddii waxaasi dhacay waxay arki jireen dhibaato dhacda oo laga tashado bal maxay ku dhacay sidee u dhacday waxaa daba yaala waxa intii la geystay in la argagixisa la dagaalamay dawladda shiiya lagu soo duulay halkan ay ka baxday cid baan u cilin tirayna waxa la galay ee foolxuma wixii lagaga hadlay afkii lagaga jawaabay baa ka sii xukuumaddii meesha joogtay warkeeda waan arkay wasiirada halka ka joogay markii dhibaatada dhacay inay dabkaas sii huriyaan mooyo wax kale oo ay qabteen ma jirin wiigii 6 jeer bay hadii jireen 6 jeer waxaan dhibaato ahayd waxa sii huriyay wax mas'uuliyad ku jirto kuma yahay markii ay caynaba tageen oo wixii dhici lahaa dhaceen 14 maalmood kadib ay hadana ila xabad joojin baan doonayna ciidankii way soo fadhiya xabadiina waa socota madaxweynihii kadaalig buu ahaa haystay xukuumaddaas inta uu hadlayo wuxuu argagixisa la dagaalamay madaxweyne dowladda igu soo duulay madaxweyne Soomaaliya federaal baa igu soo duulay madaxweyne Puntland baa ila soo hadlaysay waxay ku dambeysay in ilaa reehil baa igu soo duulo magacyo dadyo Soomaaliyeed iyo muslimiin laga bilaabo waxa ku xigtay xalay maqlayay federaalka igu soo duulay
والواحد كاستق عنتي فعل كوا وحنا أرجولي وحنا وحنا تشتغل بالهذا الدولة وصار وهذا ولي جماعة سكده الدولة وح ما تشجعني وح أفكار هذا ولي جماعة هذه ومدة رئيس صحيح ده قال كل البين له شيء صدق كاس اللي يقولي وأنا وهاي الحوار واحد إيش عالم كواحد نقطة واحد دورين اللي بقول هذا تدكم يعني عقل هنا وحنا جاي سري بل أنت عصر شيء تلاقيه والبرتية اللي سكسر دراسة الشركة يقول بيها عن كسر أورولي يا قلبك أنت أساسا وقت بدل لو قادت ما أنت هلك أي تاجنت ولا كيسة حلك أرنتاس وحي ما أنت أقول له وينو قررنا ومدة عملي من بآدلية وحي يلا دابا وأشياء هل كان دتك تشوفه يقول الرئيس الله الله كي يسمونه يقرأ يوحقرت ما يقرأ تديون كل الدرس كانوا قاعد حاضرين وكتير ولي اسمه بدين دتك على بعتها لوجستي صدق قضب بيتاعنا إلى ما أنتم ورث إلى ما أنت حبيت توجد موجودين ها أنا وما نبلابين اللي قداي إذا ما ظهر لك على قالوا كسر حدود قبيلتك وجاه ميل حبيتك كل شيء وهذا هذا الموجودين هذا يكون هذا صدق لا قضب وحنا إلى ما أنتم ورث ولا جاه يدتك عبتي واحد حكومة الصومال لا يدتك اللي تشوي كسر بحية وأرجنا أنت أفريقيا هالليا وحالك ما أنت يود بيسي هذا سلوان قال وما ندقيس وحالي مدحوينه وحالي كفيجيك ورحمة ياسين وحالي حكومة الأردن وحالي عبد الرحمن وحسب معنا وحالي فيصل عبد الله الدرولي إنه ورا عبد الكهري يركي ما السوق هذا يدتك النجاجارها يكون سوشيال ميديا كهذا كتير الليد كي يدتك وحلا ومضى وحاول كهذا ولين الوقت دتك أسكو هذا يعني الوقت الإسلام أما كوه هل كان شغال حلول نقولش حق قبرس أما اللي بعتها هل كتير حق قبرس عامل لكم عارف فيصل عبد الرحمن بانركي حسب المعارضة ولا مرة من ذيني مرة لدد باب حصول عبد الرحمن عيدك واحد السبيا قرق عيدك بسود عيدك سود شيء سوبان لأن المصبح يحيي بتشت هدي عيدك سوبان لأن يدك سود شيء لاسعانات يده هناك كرويلي سوى البوال راح الله أمان كذي بكوايان أمتي مقالة دي بيتبرر له كلام حي ما نسيت ما راح حبدني يقول شوالين حبدني كسعة تروت ولا كسعة سؤال أنا قلت هدي عيد كسود دوشي عبد الرحمن أنت كلي جالس قطعة ولا شيء ورد إلي بيحبك كسود ولا عيد لكم كسود يلا عيد كسود دوشي اليوم اللي هو حظ يعني يخيه بالبايمي ولا نقصد دولي هم واحد دوليسي أنت عرورتها إسكالات أكتية مقالة المدافعها لا إسكالات أكتية ومد إلهي كوارت وأنت سواء كبط عبد الرحمن بحد الله وحيد سنة إلا ولا نقصد دولي موسى اللي حكى إسكالات بحد الله وحيد الشباب الله دقالام يا بيت بالله بكو فيصل بانركي ولا مقبضة السماية كي داري أنا بحولك عينك وقالت لما قال هذا إلي يسوي بانركي ومد إسكال لو كل إليت كده تفيد تون بانركي يخلص سؤال شان سويدين يا حوي وحيلي أبي ريه بالبالون يعيد المسودش أنت سوى المسنابي فيصل ولا أبغضها على السماء عبد الرحمن ولا سؤال لما المسودري سؤال لما ورسؤال لما عيدان بالحكوسود وحسين سويدين موصلوه إيه قبيلة إيه كلا يطلع إيه لما رشق ساعة ليس له هست ما يدك حرة يدك عبدك واهم بيعنا الموصلوه ده لحسنود بعينا بالحلك هاي لحسنود عاركي أنا قاعد بحسن كذي أبياش لأنه كافي أجري ريه بالبعد هاجرته وحن أفهمه يكعين هاي كمان مقال إلى بيحي إنه يساق لفترة طبقة قبته كل شيء جيس كله كل شيء كورنا قلافته أنت سويدين مقتل قبلنا كنويد حتى أنا ما قبل كرتان ولما وعد كوكول استين ولا ولا يوسف دولا كعب يا عقل التالية ووحي حركة كنا عيال ولما كوك قرب تاجنتي فيه بالإمام ما يعني سؤال محمد الله بايمانس لا برير بوه الله وضياله وضح الله هذا العرب ينشف الدولة ورنتي الشعب وضع عياله وكان بدني يا بكوي هذا العرب بكوي هذا فان بدنا شيخ دولة كوي نيكي فلا هذا المباراه هذا هاي بوقال ورد نيكي قبيلات يكتل يا مسلم نيكي ليس مهست هدي لوايو عقلي يا أقول أنت كبدنا مقارنة وحل له هنا عليه عدة اللي مو يعني ورط الصومالي فيه بلي الدارات وعلى الشيء بدر تنتبه تنور dad baan ogahay deriska ah dadkan la isku qabiil yihiin oo u yimi waxa dhacayana ka yimi cidina uma yeelin inay bixiba oo yaariyo waxa halka ka sameeyay cidda joojin karta ee gacanta ku haysa in kuwaasina nabad gala reer shaqsa oo uu dhibaatada ku hayo oo qoysku kala saaray oo xabada ku bilaabay iyaguna inay nabad galaan kuwan nabad galaan sareediyo nin oo wixii wada hadli kara ee ummada Soomaaliya wax ka dhaxeeya anigu oran maayo inta durbaan la ka garacdo waa muqaddis لكن وحي بلا آذر وحكرنا حيانا داري كان حيصور هذه الكريه هلا قال وحي ما أنت تاجر عدبة مسؤولة أفرح على السجاحي
وان كتلي صدح سنوات كور بان شيء بان تجيبوت تشوغي وها سومالي بان ودا هادلينا maalintan halkan iyo 3 bilood ka hor baan kala hadlay inta isaga ku dhaw ku xeeran baan u sheegay inta dhaqanka aan barkood la hadlay nabad guur meesha waxa ka soo socda laga wadaa waxay daan mahadin maalinta qaadan weeyay waxay igu jawaabeen qaarkood ciidanku xoog ku galay ku soo gal ciidankii xoog iyo ciidankii ay saarkeen mana ay mahadin waxa hubaala oo xaqiiqa inta dadka shacabka gobolada ku nool waqooyi laga qariyo oo laga dido oo been lagu maaweeyo wixii ciidankaasi dhibaato geystay iyo iyaga gaadhay ee loo geystay nuuxna waa maqlaysay waa turaysan waa ku soo noqonaya isaga intii waxaan ku gabagabeynayaa waa arkaa eliidkii iyo odayaashii iyo kuwii siyaasadda iyo madaxdii faysal waxaan leeyahay intii isaaqu miyir qabay baad ugu xumaan baad ka shaqayn jirtay isaaq hortii baad waaleedaad lahayd tollaay iyo leeda qabsay iyo reer hebel iyo daarood iyo reer walba gaaro caayis shaqadaadii haddeer ay socotaa ina bixi baa bilaabay naxligii iyo nacdiirtii iyo dilkii iyo wixii aad ku taabi jirto oo dhan ha ka harin haddeer aad ula shaqeey oo inta soo la miirsada hadhow dadku maruu miirsanayaan shaqadaadii jaalis ba haddeer taagan ninka la shaqeey koob muqma waadna hambalyeynaysaa ciidankii ciidana kuma duulin iyaga ku soo duulay ina bixi baa la soo kiciyay laas aanood bay dabeereen oo baabi'iyeen dadkii joogeen xabad bay kala daaleen wixii ay hayeen way ku rideen inaad hambalyeyso maahay laakiin dhalinyarada xalay burcad ka hadlaysay arkii iyo beelahaan reerkiina waxay go'aansadeen iyo talada ay qaateen labadaas ku dhaafay laakiin waxaan ku oran lahaa siyaasaddu caynka ma hageesinimo ay u baahan inaad ina bixina eedaysaa kuwan eedaysaa ciidankuna waa hambaliyeen kuwii ay ku leeynayaan agtaada ay leeynayaan carruurta ahayd ee hargeysa ku laayeen burcad ku laayeen ceergaawo ku leeynay kuwaana miyaad hambaliyey ku hambaliyeen iyagana iyagaa laayey kuwana iyagaa laayey intaa kuu dhaafi maayo laakiin waxaan ku oran lahaa inaad position cad istaagto yaa kaaga ficlaan lahay faysal inta horaan ku noqon maayo usoo bixiye reeshaq saacadta kale waxa la leeyahay 3 sanadood ka hor baan ku sheegay inta jirto waxa meesha ka dhacay inaan ciidan qaban karin inay soo socoto inay talada meel ku sibay xuduudina la soo xili karin meeshu inay inta ka balaaranta alla kugu baduuli maalintii dhaweydana iman kala hadla ku waxa meesha ka socda waa waxa alla kugu baduuli maanta mid saddexaad kugu celiyo halkii ka tagtay meeshii aad la doonaysay bay taala waxa meesha ka dhacay iyo siyaasadda xun ee qaloocan ee 2 sano soo socotay waxay dhacashay tala iyo dawladnimo dadka maanta isugu imaan karaa inay muuqato laakiin waxa muuqata dadka inuu kala nabad galo nin baa laga sheegay boqolnimo seegtay bulshadaasi dawladnimadii adaa soo xilay reeshaq saaqna ka qaban waayay inta hadhay kala badbaadi dadku isku leeyahay inta hadhay kala badbaadi qoliyaha reeshaq saaq xagga waxa uu sheegay ودولتنا هو مقطع إذا كان ركض تقلصين اللي بيحلوا القيادة يعني دتك يا كلا بالبال ووحي أي سوء عيال يوحي يصون قد دوران واللوج لها يلو أنت اللي كان حيسوء أي سوء ليه لو وضع لسه له هذه كده أنت عبد سجر أنت صار رايح لما تجيك كلام مقطع بتشفت المني بيأذن وكوي ما عندكوا أفكار رسالة بتشفت وحاطكم بس أنت هلك شوكتها جوش عندك شوكتها أنا كل مرة نكون أنا بريال كل معنا أنت صار الله حلكوا بانت وجودوا يبرد البيت أنت كركوروري عندنا إثيوبيا لكوي ماني تريس والله هذين عند والله مسلم قلب يا رئيس عندها هذين تبي أنا ديك هاي نمبر حد يرى عليك يقول أنت كلاقات عندك وقوليه دي كله سجل أنت صار نوع ثاني والتليه عندما هلك تشوف ومركز صدق هذا المقلي سوى هاللي هرنا أفعليس وحيالها الصايح اللي جابي كم ده هاي إنك وحنا وأبها وكم ده ندقر له هدي ويكوي كرت ندقر له هدي ويكوي كرت وانك السبب أنت تكون بالجال وحي عينك هاللون بيكلك هي قبيل كندقي إن بمليانو صاير ليه ولا رجعت وعرف كذا هدي يوم خاطب الدور حقوقه دي بالرمية وكون وما أنت هو شغل دقيقة كندقي حقوقه دي سرتان هو فور حولي كان عالم معمر يوم واحد كنت اللي تقولي وصل بيكوي لكل هذا الأسعار وحي وهي بكل منك بيه سكوت تاعو شد بيه صدق لا بلد بيه لقعد الله يجيبه كتير الشغالين كلها وحي وحبذها يقول والبهوبية كل عواوت فيه وحال هاي سهوب له واقع كل واحد يديه لوار وما حد تورست على بس أصلا تطلع وما تطلع حد اللي تهدي سير كل واحد قصة يسوي أوجي كل هذا شوك تضط رسالة السيدة كان جوا عليه نقول اللي تقولين اللي تذكري الأسعار كلها بتجي سيدي هذي تيجي تذكر كله وقالوا واقع تسوي حال على صبي اللي وطرين حبيك إلى هاي كيلو عيدك ألا تشوك تلاس عمل بيمرة ويكاسر بحصلها كلها المقاينة واجد بينا رح يقع بين دافع كم عمل حد كل داو عوان قالنا
kuwii maxaabiista la sii daayay baa magaalada jooga sida dadka u nool oo xora oo guryahoodii inuu leeyahay abtigi jooga kuwii kaasoo yaacay baan ilaa bariga jigjiga ka hayay habeen walba way mar kuwa baabuurta kugu xilin waa rogaa tirtiinka la baxsanay inaad hadash adoo waxa soo foorxumaay haddii iyo hadhow ku agyaan maalin walba inaad halka soo fadhiisato tira ciidan baa u turay aan xishoonay qofku markay foorxumada iyo xumaanta ku tarato noocaas oo damir ku xumaa